سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. مؤرخينtu waxay yidhaahdeen kaana salamatu bnu akwac wuxuu ahaa ninka la yidhaha salama min ashaddi nnaasi ba'san, dadka ugu dagaalka adag, wa ashjacihim qalban, qalbigiisuna ugu geesinimo badan yahay, wayasbiqu lfarasa, faraskana wuxuu ka badiyaa cadwan isagoo lugaha ku ordaya, lugihiisa isagoo ku ordaya ayuu fardaha ka dheereeya. hal ataaka naba'u salamata bnu akwac, sidaadaba warka salama miyuu ku yimid? innahu ucjuubatun, ninkani waa cajaa'ibaha, waa cajab ka mid a min cajaa'ibi dahri, zamanka cajaa'ibtiisa mid ka mida weeyaan. wanaadiratun, waxyaalaha naadirka ah dhicitaankooda iyo araggooda la arko ay naadir tahay, min nawaadir zamaan, zamanka waxyaalaha naadirka ee soo mara mid ka mida wey. fa huwa caddaa'un, waa nin ordaa ah, laa yusbaqu aan laga badin. caddaa'un laa yusbaq, waxaa weye orodyahanadu waxay orodyahano ku yihiin inay dad lugaynayo lug ku ordayoon ay ka badiyaan, laakiin salama farduhu ka dheereeyay. waraamin laa yukhti, waa nin raamiya toog badan oo laa yukhtiu aan la waayin wuxuu toogto. wa miqdaamun, waa magabade laa yahaabu aan cabsanin, dadka dhufayska ku dagaalamo maaha ee waa dadka orodka iyo socodka ku dagaalamiyo istaag. wa muqaamirun, muqaamir iyo miqdaam isku macno waa la siin karaa, laakiin kelmadda muqaamir waxa weeye ruux khatar isgelinaya oo naftiisa inay dhimato iyo in kale aan kala jeclayn, inay dhimato iyo inay noolaato naftiisa aan kalaba jeclayn wey. laa tantahi cajaa'ibu muqaamaraatihi, alaha muqaamaraadkiisa cajaa'ibtooda wax dhammaada maa. muqaamaraadka hadda aynu meelaha ku aragno waxaa arkaysaa mooto intuu soo orodsiiyey meel dheer ka boodsiinaya, waa muqaamara weyaan, muqaamaro wey. marka waa nimaan cajaa'ibta muqaamaraadkiisa halaa ku saabsan ishalaagidii khatar isgelintiisu haddii laga sheekeeyo aan la dhammayn karin wey. taqra'u akhbaara batuulaatihi, wararka ku saabsan geesinimadiisa iyo halyeynimadiisa markaad akhrido, fa yukhayalu ilayka, waxaad malaynaysaa oo lagu moodsiinayaa annahaa darbun, inay tahay nooc min alasaatiiri khuraafaada, yani waxaan dhicin oo khuraafaada oo kale inuu yahay ayaad moodaysaa. wamaa hiya bilasaatiir, khuraafaadna maaha. faqad rawaaha ashaykhaan, bukhaariy muslim baa wariyey, muslim bukhaariy wa ahbatahaa fii saxiixayhima, kutubtooda ayay ku taallaa wararkiisa asaatiirta u eegi. kaana lisalamata bn akwac fii makkata amwaalun wa caqaarun, ninka salama maka wuxuu ku lahaa xoolo badan, caqaarun guryo iyo maguurtu ku lahaa. faactanaqa alislaam, islaamkuu qaatay, wahaajara ila allahi wa rasuulihi sala allahu calayhi wasalam, wuu hijrooday. markuu hijrooday, wakhallafa wara'ahu kulla maa yamlik, wuxuu kaga yimid maka waxalla wuxuu haystay oo dhan ayuu uga soo qaxay. wa jacala yacmal fi lmadiinati saa'isan, wuxuu marka gudagalay inuu quutu daruuriga ka raadinayo maka gudaheeda madiina, fi lmadiinati saa'isan, isagoo maamulaya lifarasi طalxata bni cubaydillaah. طalxa bni cubaydillaahi faraskiisa ayuu calfintiisa iyo wadwadidiisa iyo soo waraabintiisa iyo ayuu u xil saaraa. markaasuu deedna siyaasaddaas ayuu ka quud raadinayay oo wax lagu siinayay. siyaasat alfaras waa maamulka faraska wey. liqaa'a طacaamihi, isagoo wax kale la siinaynine liqaa'a طacaamihi, cunto uun caloosha muggeed, waxaa la yidhaahdo food for work,
وحال يراه عمل مقابل الطعام، أو طعام عمل مقابل عمل مقابل العمل. sida la yiraahdo oo kale dad macnaha inta lagu shaqeeyo cunto la siiyo. فما كان يريد من الدنيا الدون كبا مرب غير لقيمات وكتنازل باشي كبيرة وحكى مرب غير لقيمات لقمضو يقيم بها سلبه دبر كيسا كوسو توسيو لعلوش مركي قاجوتو دبر كي ما هنكرتو ويستعين بها على طاعة الله والجهاد في سبيل الله أو كالما استطاع إلهي يجهادك وحانهين با مربو. ولعلك أيها القارئ الكريم حلقيا قد نزع بك الشوق نكون جيدنا اليوم جعيل يحيس إلى سماع طرف من أخبار هذا الفارس إن أدبل مقشو وحكم ذا ورك كساب سن فارس كان جعيل كاس يحيسها سنكون جيدنا يلمودا والوقوف على بعض عجائبه وعجائبتي سو حكم ذا إن أذكر استاكتو فإليك شيئا منها. المركع واتني يقبصو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك أيا بحي ب1500 من أصحابه سووا كن يشن بغل أصحابتي سوتا أيو وان بحي مكة حديبية فيهم كن يشن بغل وحكم ذا سلامة الأكوع يريد العمرة نبي عليه الصلاة والسلام وحو الصعداء وعمروي. فلما بلغ قريشا نبأ خروجه قريش مركي مقاشة وركا كسابسا النبي صوب حي قامت له ويهور استاغين ويسوتاغين تريد يدو دونيس قريشي أن تصده عن البيت الحرام إن كعبة كور استاغته. فنزل عليه الصلاة والسلام بمن معه في الحديبية إن رسولكم مركو أرنتي وقاذي سوى عيدا كيسيوتا أهلك حديبية لإله الدقي وأوفد عثمان بن عفان وهو وفد أهان الدري سيد عثمان إلى مكة مكوب الدري سفيرا بينه وبين قريش سيد النبي إيا قريش لحدودا والسفير أبو النقضو أبوك لإرقيو فريمها وكلقابو فريمة الرسول كان أقارسيو فريمتو دنا أسوقاب. لكن الأخبار لكن ورركو ما لبثت أن جاءت مركز عثمان لدير وحي كذبا ورركو وحي كي مادين بأن قريشا قتلت عثمان مركز عثمانها قريشي ويدي شيء وركاسا ويمت صحابة يا النبي عليه الصلاة والسلام. فعزم الرسول صلى الله عليه وسلم على حربهم سوق مركو حقو أنصدين ولا دقالهم sideedaba arrintan noocaas oo kale oo lagu tallaabsaday waxay ka dhigan tahay waa inoo dagaal saasay ka dhigan tahay iclaan dagaal wey in ergeyda la dilo waxaan hadda xasaana diblomaasiya la yiraahdo ee dadka diblomaasiyiinta xasaanada haystaan haddii qof diblomaasiya dhib dowlad kale loogu geysto labada dowladood ay kala go istaagayaan oo safaaraha inay gal qaataan ay u dhawaanayso wahakada waxay ka soo bilaabantay halka wadaca almuslimiina alladina macahu ila mubaayacati marka ciidan kale ma jiree muslimiintii la joogtay wuxuu yiri kaale bay'ad gala ala alqitaal walmawt inaan dagaalano dhimanana qaala salamatu al-akwa radiyallahu anhu huri laqad da'ana rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam rasuulku wuxuu noogu yeedhay ilaa mubaayacatihi عند الشجرة جيت كأكتيسا جيت سمورة لغو مقعابو سمورة وحلي هذا جيت كقرعة كتكقار كودنا مراجي كتل مامان لكن مركي هذا قاموس كأكتو وحكو صوبحيا قرعة بكو صوبحيا أيا وحولي جيت كأكتيسا بايعتو أول الناس تدك وانوه الرئية أما تدكي وهر بيع قليبا كم نقول ثم طافق المسلمون يبايعونه كن يشنتي بقلبها صفصوق شيء وبيعذا قليسي حتى إذا بلغ نحو من نصف الناس قياستي مركي كلبد مريس وبيعذو التفت إلي ويصود ديموضي وقالوا حري بايع يا سلمة سلمة وبيعذا قل
فقلت عني قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس رسول الله تدكي أهري بان كتشري بان قالوا حلوة أيضا حدنا كعشو فبايعته الثانية مر لباد بان هدنا بيعاد لقل قف وعليي النبي عليه الصلاة والسلام بيعاد مجرو وعند ذلك مركاسه راني عليه الصلاة والسلام ياركي أعزل من السلاح أنا بلا هبأ فأعطاني ترسا قاشان بيسي أحتمي به عن اسكو إلاليو ثم جعل المسلمون يبايعونه مسلمين تي وحي بالله بين إن يتبايع لك إليان حتى إذا بلغ آخر الناس عدنا مركو مريو تدك قيبت قدام بيسي التفت إلي ويصود دايمودو وقالوا حري ألا تبايعني يا سلام سلام وميادا بيع إلى القليل فقلت عني قد بايعتك يا رسول الله في أول الناس تدكي أهريي وفي وسطهم لحظة انتظر بيعدي وانكو لك رسولك الله قال حروا أيضا عدنا كعش مرسى دحاد فبايعته الثالثة مرسى دحاد بان عدنا بيعدي لك ثم نظر إلى يدي بيعدا صدحاد أيو قعنت إذا إيجي وقالوا حري أين الترس الذي أعطيتك أو قاشانك يا أنكسيي فقلت يا رسول الله لقيني عمي عامر هذاك عامر ابن الأكوع اسمه لي هذا أي يقول لكل مي فوجدته أعزل سونا قعمرا يا نركي فأعطيته إياه سجبا قاشانك سيي فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سلام حيري تاس مركا قصة عجيبة يحيدو حوي إن كلي كون يشن بقول وقف صدح جير نبي عليه الصلاة والسلام وبيع الله قالوا وحيلا هاي ترجمة قارة معنى قارة يلا وأهمية دولية هاي بيعديسو إجهاد كيسو يوحتر كيسو وسيحو جين النبي عليه الصلاة والسلام بلونا أسيات كينا يو اسكو هلين ka qabo dadko dhan ka badan ka qabay salamawi qala salamu khayri thumma innal mushrikeena rasaluna bisulh yadi mushrikiinti waxa bilaabantay murasalo farin isu dirdirid fastalahna nahnu ahlu makkah wa nahshinay annagi yareen makkah waqtalata ba'duna bi ba'd deeno waxa bilaabantay isdhaxgal iyo isdhaxqaadid baa bilaabantay in ruuxii rabay madiina yimaado قريش يا مشركي كي أنا جنّا من الرباي إنه مكة تجو ساسا بالله بنتي فأتيت شجرة جيت بانميد وكنست عن حاقي ما تحتها وحي هوسي لي من شوك قضحة واضطجعت في ظلها حركي بانسكجيب صدي وما هو إلا قليل وحر كدب حتى أتاني 4 من المشركين حييمي أظفر مشركين تكمل فعلقوا أسلحتهم على الشجرة كيتكي أنشي فيبي صرصرين وبكودي واضطجعوا قريبا مني مالي دو أي تشيب صدين وجعلوا حب ذكالين ينالون من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرسول أي عاية يا بالله فأبغضتهم وأنا عروضي وتحولت عنهم وأن كوريجي خوفا من أن أستثار أنا كعب سنة إن عرض اللي بكاكيو أنا كعب سنة يعني إسكجوريجي وفأبدأهم بقتال عند الدجال كوب الله بلا حدان دجال ملهانا إشيس بالجلايو إشيس كي إن عندي أنا برينتي سبب النقضي بلنتي حقه دجال لقب بحن حق مسلمين تين لقب بريي وبلنتي لقب حي بين نقول لهاي مركا من أن استثار إن ليوكا كي عرضنا كعب سنة وبينما هم كذلك ينكدر كمركا يدو سيديا إذ نادى مناد من أسفل الوادي من بعد واقي تق حق هوسي يا للمهاجرين لقد قتل المشركون ابن زنيم ساسفرين تاسا واقع صباحي منك ابن زنيم ليراهدو أي مشركين تدلين يا للمهاجرين يا مهاجره ويو وأسلوب الاستغاثة طلب النجدة قفكم مركو برمد يو باهن يهي
qayla dhaan weeyaan qayla dhaan baa layidhaha famtashaqtu sayfa fi yamiini seeftii baan galka ka saaray midigtaan ku qabsaday wathabtu calaa aslixatihim nimankii baan hubkoodii u sursugnaa baan ku orday ku booday fajacaltuhaa xusmatan fii yasaari hubkoodii oo dhan gacantaydii bidixda ahayd yani xusmatan xidhin kaga dhigay hal xidhina washadadtu calayhim qabla an yanhaduu intayna kicin yaan iyagii eryaday ama ku orday macnaha kullu daalika intaasoo dhan waxay dhacaysaa fii tarfati caynin ilbiriqsi gudihii uma baadartuhum qaa'ilan waan anaa kaga horreeyay hadalo waxaan ku idhi waaladii akrama wajha muxamadin sala allahu calayhi wasalam allaha nebi maxamed wejigiisa karaameeye baan ku dhaartee laa yarfacu axadu minkum ra'sahu haddii qof idinka mid yihin madaxa kor u qaado ilaa darabtu cunuqahu qoortaan ka goyn baan idhi uma awhaqtum raggii waan isku xidhxidhay waan wada xidhxidhay waqarantu bacdahum ilaa bacdin markaasaan isku xidhiidhiyey waji'tu bihim asuuquhum ilaa rasuuli illaahi sala allahu alay slam anoo dabada ka wada yaan u keenay rasuulka taasina saasee uma kadib ina rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam rasuulku madaa biasxaabihi waman macahu wamacahu salamatu bn akwac way hoydeen saxaabtii rasuulku salama lam ka mid yahay xataa balaqa almadiina ilaa madiina la gaadhay wamaa in istaqara biha qaliila madiine nabigu calayhi salatu wasalaam markuu waxaan ku nagaaday xataa amara ghulaamahu rabaaxan addoonkiisii rabaax buu amray waqtigaa wax addoommo la yidhaah baa jiray laakiin uu islaamku takhfiif ku sameeyey wax badan ka bedelay iyagoo aan xuquuq lahayn ayuu xuquuq u yeelay islaamku iyagoo macnaha wax xaqay leeyihiin shimbirta yari xaqay leedahay ma laha addoonku haba yaraatee ninka haysta ee iska lihii xalla wuxuu doonuu ka yeelay sanku goyn dhaguhu jari xiniyaha yuu xaabin wuxuu rabuu ku samayn jeedalka iyo garaaca iyo dab lagu qabtay iyo waxaas iska daa xalla wuxuu raba ku samayn cid la hadlaysaana ma jirin dadkii noocaas ahaa xuquuq baa loo yeelay bani aadam bay diintu ka dhigtay wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ikhwaanukum khawalukum walaalihiin baa khaadimiintiina ab dadka khudaamta idiinihi waa walaalihiinni ogaada jacalahum allahu taxta aydiikum ilaahay baa gacantiina soo geliyey fa atcimuuhum mimaa tatcamuun waxaad cunaysaan oo kale waa inay cunaan wa albisuuhum mimaa talbasuun waxaad xidhanaysaan oo kale waa inay xidhnaan walaa tukallifuuhum maa yaglibuhum wax ka xoog badan shaqo ka xoog badan ha u dirina fa in kallaftumuuhum faacinuuhum haddaad shaqo ka xoog badan u dirtaanna la qabtaa saasuu ka dhigay nabigu calayhi salaatu wasalaam xuquuqdooda marka dharka uu xidhan yahay sayidku iyo dharkuu addoonku xidhan yahay waa inay isku dhar noqdaan cuntaduu sayidku cunayo cuntaduu addoonku cunayo waa inay isku mid noqdaan haddana waxaa la furay intaasoo waddo oo addoonta lagu xoreeyo ayaa la furay tarqiib baa la sameeyey jeclaysiin xoog badan ayaa la sameeyey oo addoonta lagu xoreeyo ajirka laga helayo la gaadhsiiyey in naartaba lagaaga xoreynayo xubnahaaga oo dhan waxay naarta kaga xoroobi inta xubinay kugu taallaa maadaama ay ku taallo inay naarta aad kaga xoroobaysa haddaad addoon xorayso halkaasa haddana yaa la gaadhsiiyey kafaaraadkii iyo waxaalihii la midkaah oo dhan ayaa waxaa lagu daray cidqu raqaba addoon la xoreeyaa lagu daray qaabka addoonnimada loo soo galo ee loo addoomoobo waddooyin fara badan oo 20 jid ah sababood ah ayay lahayd hal miduu ka soo reebay islaamku halka midkii waxa weeye waa arrinta ah in dagaal la galo dadka dagaalka lagu qabto inay addoommo noqdaan taa keliya laga soo reebay waxaa la daadiyey wixii ka soo hadhay oo dhan ee 20 ah waxaa ka mid ahayd in
carruurta la xado addoomma laga dhigto. waxaa ka mid ahayd in ruuxu daymoobo markuu qaamoobo qaantii iska bixin kari waayo inuu kii daynta ku lahaa ku yidhaahdo dayntaadii anigu waan iska bixin kari waayey bes iqaadoo addoon iga dhiga inuu ku yidhaahdo. ruuxu hadduu gaajoodo wuxuu cuno waayo inuu dadka isu bandhigo u yidhaahdo waryaa addoon iga dhigan oo un bes un gurigayga noloshaydan ku fillaan. carruurtuu haysto hadduu waxu waayo inuu ilmihiisa mid ka mida gado, mid ka mida inuu iibiyo si uu intii kale ugu badbaadiyo. qabaa'ilka isku duulayay ee dagaalamayay waddo dagaal qabiil oo dhanna dee midaaqadaa laga saaray, taasina waxayd waddo lagu addoomoobo ayay iyaduna ahayd. marka sidii u socotay markaa way dabar go'day hadafkii islaamka la mana ahayn arrin inta ay waxay ku soo dego la yidhaahdo wax la addoonsan karaa ma jiro ay deedna ku hirgeli ma ahayn. sababtoy tahay dad baa waxay ku sida xoolaha loogu xisaabtamayay intaasoo 3,000 oo addoon, hebel baa 4,000 oo addoon haysta, saasaa la odhanayay. 4,000 oo addoon dareeri un subax way adkayd. markii ay islaamku sabab u noqday inuu dabar gooyo ayaa haddana waqtigii waaga dhoweyd ahayd slave tradingkii, ganacsigii addoonsiga ee nimankii carabta ahaa iyo ay isla bilaabeen, nimankii reer Yurub ay isla bilaabeen, ayay haddana dib u bilaabantay. marka sidaas arrinta addoontu ay ahayd. xataa amara ghulaamahu rabaaxan, wuxuu amray nabigu calayhi salaatu wasalaam addoonkiisa Rabaax an yakhruja biibilihi inuu geeliisa kaxeeyo liyarcaaha fi lbaadiya si uu miyiga dhow u soo daajiyo. facazama salamatu wuxuu go-aansaday calaa an yakhruja macahu inuu raaco liyarcaa farasa طalxata bna ubaydillaahi aydan isna si uu faraskii طalxa u soo daajiyo. tawashaxa wuxuu jeeni qaarsaday salamatu akwac qowsahu qaansadiisii, waxamala wuxuu qaatay nibaalahu leebtiisii, waاnطalaqa huwa saaxibuhu isagii Rabaax way socdeen xataa balagaa makaanan ilaa ay gaadheen meel shimaalay almadiina, madiina waqooyigeeda ah, yuqaalu lahu layidhaah algaar la yidhaahdo. faaraaxaa fiiha halkiibay ku foofiyeen sawaa'imahumaa xoolahoodii ay wateen ee foofka ahaa, haleeladii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo faraskii. wabaataa hunaaka leylatahumaa xalibeenkii halkiiba baryeen. wa fii alhaziici alakhiir gelinkii dambe oo min alleylia istayqadaa waxay ku soo baraarugeen calaa katiibatin koox min fursaani qatafaana, niman fardooley reer qatafaana weerara. ciddatuhumaa 40 faarisan, tiradoodu 40 ay tahay. agaarat calaa ibili rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam, oo geeli rasuulka soo weerartay, fastaaqataa kacaysatay. wa qatalat waladan liabi darin alghifaariy, waxay dileen wiil abi dar uu dhalay, kaana cinda libil geela ag joogay. qaala salamatu akwac wuxuu yidhi cinda daalika markaasaan qultu ku ihi lirabaax khud haada alfarasa, faraskan kaxee, waaddihi ilaa saaxibihi, ninkii laha u geey. wa akhbir rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalam, rasuulkana u sheeg ana almushrikiina agaaruu calaa ibilihi, in mushrikiintu geelii rasuulka ay soo weerareen. uma irtaqaytu, anna waxaan koray ama fulay akamatan meel yaroo taagsina fowqa haniyati alwadaac, karinka haniyatulwadaac la yidhaha korkiisa. wastaqbaltu lmadiinata, madiinaan saa ugu sii jeedsaday. wanaadaytu biaclaa sawti, cod dheer baan ku dhawaaqay, waa sabaaxa, war hayaay wey, war waa wareey, 3 goor. uma kharajtu acduu, markaasaan baxaya, acduu anoo ordaya fii ithri lqowm, daba cararaya nimankii geela qaaday. xataa gadowtu gayra baciidin minhum, ilaa aan gaadhay in yar u jirsaday. fawtartu qowsii, qaansadaydii baan xadhiggii ku giijiyey. waramaytu waaxidan minhum bisahmin, nimankii nin ka midaan toogtay. fastaqara fii katifihi, halkaa garabkuu kaga qotonsaday. faqultu waxaan ihi khudhu, aan ku uri iga qabo.
وأنا ابن الأكوع اليوم يوم الرضع بان أنقونا وحانا هاي إن أكوع دادي تقان وسلامة المكوع بانا هاي اليوم مالنتنا يوم الرضع ومالنتي الناس كهو يدا لتمنيني ناس كهو يدا maalintii marka ruuxa khatar iyo halis hesho uu oranayay maanta maxay u noqon weeday maalintan hooyada naaskeeda shaqayay yani culayska iyo dhibta haysata intay la eg tahay darteed yawm ar-rudha thumma tafiqtu atruduhum markaasaan eriyaday waarmihin nadda ka saaray waana artajizu anoo geeraarka ka dabaridaya wa kaanu fi kulli marratin markasta yukhalifuna waraahum waxay iska reebaan bacdan min ibli rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam geeli rasuulka qayb ka mida ee kolba ka tagaan faajcaluuhaa khalfii xagga dambaan iska mariyaa wa amdii fii ithrihim ma istaagee waan daba ordaa faidaa rajaca ilaya faarisun minhum yuriidu qatlii haddii uu midi igu soo rogaal celiyo oo inuu idilo doono kafaftu can ilcadwi orodkii baan joojiyaa والتمست شجرة جيد بان راتسدا وتترست وحن كو غاشان كدغتا في جذعها جيد كجريدي سان تترست كو غبدا وجعلت ارميه مركاسا دين halkan oo ku gabanaya yaan ku gana فرتد عني مركاسو إذا النقضة ثم ما زلت أطردهم كمزول إن سيدي وريانيو حتى دخلوا إلى قلان في طريق ضيق وضع جيجي مال اللبا يكنفه جبلان لبا بورود أي هريرها كيهين يكنفه جبلان لبا بورود أي هريرها كيهين فتسلقت أحدهما لبدي بورود بان مد فانتي وجعلت أهيل عليهم الحجارة مركاسا نجحان كسو دادي من أعلاه الدشا فتتساقط فوقهم وبين أيديهم وأرجلهم مركاسا نجحانتي دشا كجد عذا أو حق ورا كجد عذا أو حق الدنب كجد عذا ثم ما فتيت أتبعهم كما الدال أتبعه من أن دبصعني إرينيو حتى لم يبق شيء إلى أصوها رواية وحم من إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك إلا خلوا بيني وبينه قال سيدو أردنا فرحي قاعدين ويسو الدايين وجعلته وراي قال يوم حاجة دنبه اسكمري لكن ذلك حضنتي إن قالي بصو ذريدي لم يثنني إجا سو علنين إجا موابنين إجا سو لابن عن مطاردتهم إريشدودا فأخذوا يرمون أثقالهم حضنا حب اللابين وليسكي كلاس الراي وتين إن يسكفوا ضيدين أيام مسألة طور يا أصبح طور مع كتابك طور سالي سيقول ساكن كاهر انتي مقرأ فأخذوا يرمون أثقالهم ليتخففوا منها سيسفوا ضيديان فألقوا أكثر من 30 بردة وحي داديين إن كبدا صدن جو 30 رمحا إيا صدن ورن إن كبدا بي داديين فكانوا كلما طرحوا شيئا مركي وحداديان با جعلت عليه علامة بان دول سارة انتا نسكور ريو من الحجارة رقحان سيدي هرسانتي وكالي حتى يهتدي له رسول الله صلى الله عليه وسلم سر رسولك ذاتك الله صعودا أي أقرتان وخلفت ورائي مركاسان هلكي كغتغا ثم أدركهم وانقادا ما أدركهم وأدركني العياء كدي مركا أني يجيبا وحنها ليلي العياء الدال وإسل الدالي فجلسوا يستريحون مال بي فريستين ويتغدون إني وحكونا الردميان وجلست على رأس جبل غير بعيد عنهم بوران كفوغين بان أفولي أنظر إليهم أن هلكا كأغني وارقبهم هلكا أن رقابك كغاية إلال أن كغاية وفيما هم كذلك يقول سدئا أتاهم رجل من قومهم من باء يمد يقع ونظر إلى ما حل بهم فلا يدن لمن كان قبصتي أي أركي فقالوا ما هذا الذي أرى والمحاسنين قال لما يمحسنين قال
فأشاروا إلي وقالوا وحيرا ننكا هل كاسار لقينا من شؤم هذا الرجل ننكا بلايدي ساحا كلكلني ما لقينا فوالله ما فارقنا منذ الغلس تنئي وبري نجمهر ويرمينا نقدم من وهي حتى انتزع منا كل شيء في ايدينا الى وحو البون وذني ونجح حيوبيي قالوا حري فليقم اليه نفر منكم 4 محايدن هيبي افر اكعيو افر ادرع فصعد الي 4 منهم افر بابورتي igu soo kortay فلما اقتربوا مني markay ii soo dhawaadeen بحيث يسمعون كلامي هير أي هذا الكي مغليان يان قلت لهم والله الله حنقول هل تعرفونني ميا ذكرنا إيسان هبكو حبب للريد كلمة هذا الكي نفتي سوا هبوي ميا ذكرنا إيسان قالوا حرين لا ومن أنت كما قرانيني وياتهي قلت أنا سلامة الأكوع سلامة إلي هذا والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم الله وحن كدارتي نبي محمد وجهي سكراميه لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته ننكستو إذن كمدا أون أنو راتسدو وان سوقبا والله يطلبني رجل منكم فيدركني روح كستو إذن كمدا سكستا دور البدنياي سكستا هدوها لسوياي يما سوقبا كرو فقال أحدهم إنما تباوعي أنا أظن ذلك والله ساوى من أمالين يعمل ثم رجعوا عني ويقنعين بس هل كيف يجي النقضي فما برحت مكاني هل كيف عندي الناس كجنستي حتى رأيت إلى أن أركي فوارث رسول الله صلى الله عليه وسلم فردوري الرسول قد أقبلوا من المدينة وبرمضه مدينة كتني فإذا أولهم وحوصه الريا الأخرم الأسدي رضي الله عنه وعلى إثري وحق دب الصعدة أبو قتادة الأنصاري وعلى إثري وحق دب الصعدة المقداد ابن الأسود الكندي مقداد بن عمرو الوليد هذا رضي الله عنه فما إن رآهم القوم قال ذي مركع أركان حتى هب ويبوذين وولوا مدبرين عرر بيت دبدا ديجان فهم الأخرم باوحود دوني بأن يلحق به وقالوا كله فأخذت بعنان فرسه عينان كفرس كيسان قبطي وقفت في وجهي وحرقا هيوي حق هوري حكمه كتشرو وان هورستاقي وقلت عن كوري احذر يا أخرم وكدكتونو أن تلحق به إني قادو فيقطعوك عنا أي نجك جويانو أي دعلك هلان وينفرد بك أي كوك ليستان وتريث سب حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أنت رسولك يا أصحابك سؤال أيام فقالوا يا سلامة فإنه سلامه إن كنت تؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم واليوم الآخر حتى إله الرميسان تهي ورسولك الرميسان تهي ويوم الآخر الرميسان تهي وتعلم أن الجنة حق والنار حق أكتهي وقرسان تهي جنة النار بين حقهن فلا تحل بيني وبين الشهادة أنا شهيد لماذا دوني سنة كلا أمرته حنا كلا الأحمر النار قال سلام حولي فخليت سبيله وأن هو ودكيسنا وطوم إسلام مركا خير دونه وأن بني فانطلق وراهم وكذب عري حتى التقى مع مقدم القوم إلى أو قلدي هريسي سكوري مادين من كمدا فعقر فرسه كيبو مرك فرس كيسا بقنت الجوي لكن هذا كر على الأخرم كي كلام فرس كيسا لبقون جوي أنتو كسر رجال عليه كسر جيت سدي يفطعنه وريمي طعنة وريتان أردته أهلكته دي شيء قتلته فخر سريعا شهيدا قال سلم وحيري فوالذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم الله وحن كل دارتين حوجي سكراميه إني تبعتهم بعد ذلك أعدوا على رجلي حتى نوان إريدي كليجي أنا اللغة كوردية رك فرس كعررية أو لويس كوردي كبحسن الله حتى انفصلت عن فرسان المسلمين إلى فردولة المسلمين تا أنكسوا مي كجوعي
فما أراهم ولا أرى من غبارهم شيئا وأنا وحبك أركين بور كود وحبك أركين مسلمينتي فلما دنت الشمس إلى المغيب قرح لي مركي الدتان كدواتي أرادوا وحيدونين أن يعدلوا إلى شعب فيه معه مال قلع وبي كشران أي دونين كل إحدان يقال له ذو قرد بميشا بيرا ليرتووا منهم بل سيبيها وقعبان ما أنت دان وحيد أدميان وأنا قارتي أنتي أن سني موي فلما رأوني في إثرهم مركي أركان أنا دبوردي تركوه بهن وكعرين فما ذاقوا منه قطرة دبعك مرة مني ثم انطلقوا يسرعون وعرين وقد خلفوا وراهم فرسين وحي هدنا يقتل لبا فرس فجئت بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لبدي فرس نوضة يا رسولك كان فإذا هو صحبه على الماء الذي دفعتهم عنه ورسولك يا أصحاب جيسو ماشي بيه أن كير يدي بيشوغان وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ الإبل رسولك جيلي بكان تقول لغاي التي استنبت منه أنسور لدي ووضع يده على كل رمح وبردة ورن كستا قوياشي خلفه وراهم كل قاعن تقول لغاي وإذا بلال نحر ناقة وعنمد بلال انتو هل قورعي من نفكيلا وجعل يشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أشيل يا رسولك من كبدها وسنامها بيرك يكرسك أشيل يعني مد قال سلم ثوري ولما أصبحنا نودي بالرحيل الكما أسكبرني أرورتي إن مريا ليري فأردفني الرسول صلى الله عليه وسلم خلفه رسولك أياه إفنقلي حقي سدنب على ناقة العضباء هشي سعد بلونني ومضيت معه حتى بلغنا المدينة إلى مدينة أنقادني ونكاس عجيبك هنيئا لسلامة بن الأكوع أنه غدا رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم وحو النغضي رسولك فنقلي وحقد مكفولي فمس جسده جسد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم شركيسي جسك رسولك أيا استابتي وهنيئا الإسلام فتاه الجريء المقدام تهنيدا هوري سلام عليه تهنيدا الدنبنا الدين إسلام كالي إسلام كهيستا نينك النوع سوكلا اللي ندي بدن عن عبسنين مقدامك ورضي الله عن سلامة الأكوع إلهي الرال هن كان نغضو عجوبة الفرسان فرسان تي فردوليدا عجائب تودي الدقالي هنينتا سباق الخيول نينك كبدي لا ترتمي كبدي فردها الصافنات أورد كبدن أما الصفن كاسنا سلامة الأكوع بالي لهذا برشا وناكسن أيها الولي هاي